hadduu Ilaahay yiraahdo waxaynu maanta ka hadli doonaa ama aynu dib u bilaabi doonaa taxanihii aynu kaga hadlaynay dhaqanka reer guuraaga waxaynu qaybtii koowaad kaga soo hadalnay reer guuraaga geedigiisa oo hayaan iyo kaynaan iyo geedigaab wax kaga soo hadalnay qaybtii labaadna waxaan kaga soo hadalnay aqalka oo aynu u kala qaadnay dhig iyo dhambal qaybta saddexaadna waxaynu kaga soo hadalnay agabka reer miyigu ay isticmaalaan haday noqdaan kuwa wax lagu cuno iyo kuwa wax lagu shubto iyo kuwa wax lagu goosto sida gudinta oo kale qaybtii afraad iyo qaybtii shanaad waan soo qaadanay hooyaan hadii ugu noqonine qaybtii u dambeysay oo ahayd qaybtii lixaad waxaynu kaga hadalnay guurka waynu u kala qaybinay 18 qaybood saddex kamida marka waynu sheegnay 18 qaybood afar kamida wali way jiraan oo la isticmaalaa didooni meelaha lagu isticmaalo kala duwanaadeen waa guurka la bixitaanka guurka fadhiga guurka dumaasha iyo guurka xiskiisanka iyagu ma dhamaanin laakiin 14 guur oo kale ayaa iyagu saaxada ka baxay guurka waxaanu ka sheegnay guurka doon xidhashada iyo guurka xarig xidhashada iyo guurka magacadoonka saddexdaas waynu sharaxnay oo qaybtii u dambeysay lixaad aynu kaga hadalnay waxaynu maanta ka hadli doonaa haddii Allah idmo guurka la yiraahdo moonaynta ama guur sharafeedka guurka moonaynta la yiraahdo ama guur sharafeedku ma badnayn marmar buu dhici jiray sida ka muuqatana waa guur sharaf iyo qiimo ku iman jiray buu ahaa tusaale ahaan nin aad loo jecel yahay oo ama macallin oo dugsi iyo arday kiciyay ama de magac sariya meeqaan leh ayaa waxa la damci jiray in la siiyo gabadh iyada lafteeda la soo xulay oo qiimo iyo qurux iyo raas wanaagsan bale guurka noocaas ay gabadha loo xulay ninka ayaa la dhigi jiray guur sharafeed bal marka aynu yar qeexno waa laga yaabaa dad qaarkii inay yiraahdaan gabadhu nin ayna rabin si lagu guurin karaa aslama jacaylka la sheegayay wuxuu bilowdaa kulanka kadib ilaa labada qof ay guursadaan ay guri galaan ayuu jacaylka dhabtii bilowdaa laakiin jacaylka inta ka hore la sheegayay waa jacayl hangafan waa jacayl aan hubitaan lahayn sida maxaan u leeyahay de qof aadan xogtiisa iyo xaqiiqadiisa aadan ogeyn yaad ka jeceshahay walaga yaabaa de meel markiisa iyo hadalladiisa iyo inta aad ku jeclaato inta aan laguma xaqiijin karo inuu fiican yahay de qof walba markuu banaanka joogo inta si wanaagsan buu sheegaya laakiin markii guriga lagu kulmo xaqiiqada runta ah soo baxda kolkaas marka ama jacayl dhab aad qaadan ruuxa ama aad kala tagaysaan gabadh marka tolkeed bixiyay nin wanaagsan oo la jecel yahay iyadoo waliba la soo xulay waa lagu guurinayaa sharaf bay u ahayd mana ayna diidi jirin guurkaasi wuxuu dhici jiray haddayna soo qaadano macallinka markuu dugsi intuu qabto oo ardooyinka iyo ardaydii wada aflaxdo ay wada qalin joosa intaan si kala u dhigo ee laga yaabo macallinkaasi deeyna ama heerka ka guuraba meel kale uu kaco yaa la dhigi jiray ninkaasi inagama tii karo inuu inaan sii deyn karno ma reer u dhisno inuu xallis rasuul yaanu guurinaa gabadhii baa la ilaaqi jiray la baari jiray gabadhii u dhiganta ayaa la jiray gabadh baan ku garanay inay hebel weeye gabadhaas aan ku siinayna isna dib u aqbali jiray guurkaas waxa la oran jiray guur sharafeed haddaan marka xogaha iyada lafteeda aynu maartay si waadixino dadka Soomaalidu aad bay u jecel yihiin quraanka oo ilmahooda markuu 7 jir soo gaaro inuu quraanka barto ayay jeclaan jireen dadna xilliga diraacada ee chance lama haye xilligu roobku da'o iyo odayaashu wada fadhiisan jireen kadibna waxa la oran jiray dugsi inaynu qabsano
ayaa muhiim ah maxaynu sameynaa waxa la ballami jiray xilliga roobku aad dhigo ee ciidu dheregto ballidu buuxsamaan ayaa la ballami jiray xilligaasana dugsiga in la qabto lagu ballami jiray afar reer shan reer baa isu iman jirtay kadibna macallin ayaa qabsan jiray macallinka iyo reerka waxa loo sameyn jiray guddi u dhaxaysa oo macallinka iyo reerka maartay kala ilaalinsa shuruudana waa la isku ogaan jiray dadka qaar waxa jira yaa salfudud oo haday doonaan markaaba iska tagiyay shuruudo adag ayaa la xidhi jiray macallinka saddex midab buu noqon jiray mid reer leh oo xaas u degan tahay iyo mid reerkoodu meesha degan yahay iyo mid aan labada midnaba ahayn midkaan labadaaba ahayn xil gaar ah ayaa la iska saari jiray guri baa loo dhisi jiray reerka ayaana mas'uuliyadiisa la wareegi jiray guddidaas baana si gaar ah macallinka gacanta ugu hayn jirtay macallinka iyo guddidaasi qodobay isla qaadan jireen sida dhaqanku ahaa lacag lama bixin jirin dee xoolaa la bixin jiray labada wiil waxa laga qaadi jiray haday laba yihiin laba neef oo adhi ah 6 bilood hal mar saddex haday yihiin mid baa dhexfira ku jiray la oran jiray wiilku markuu gaadho kala badhka quraanka neef loo la bixin jiray qolku dhameeyana neef geela la bixin jiray haddaba shuruudda taala waxay ahayd ninka damcaynu iska guuro ama afar bilood ba jooga ama sanad ba jooga ama wiilkiisu waxa dhameeyay xilliga uu guurayo neef loo neef ishkina laga qaadi jiray waxa laga yaabaa 3 bilood asagoo joogin ba inuu iska guuro soosan boodfur u sameeynin waxa la oran jiray neef ba waajib waa inuu bixiyo macallinku hadduu asagoo boodfur sameeyana waxba dadka kuma lahayn shuruudda adag ayaa la sameyn jiray macallinku marka juhdi adag buu bixin jiray ardada waa mar la subcinayo iyo mar cashir u yeedinayo iyo mar ka dhageysanayo bay ahayd 9 saac oo habeenimo intuu tooso oo dab weyn la shido ay ardada harraha ka barsan jirtay iyo walaahoodii haya aysto oo yaani akhrinaya laba cashir baa laga bixi jiray cashirka maartay galab maanta doorkii la qoray iyo ka maartay dhaqmaha ah kadibna waxa loo fadhiisan jiray sidii loo yeersan lahaa casarkii oo kale xabaa la soo guri jiray shaafiin ardada way qaadi jirtay ardada noocaas ah markay deedna quraanka dhameeyaan waxyaana si faahfaahin u sii gelinay ee dadaalkiisa la arko macallinka iyo ardadii oo dee quraanka xifdiyaysa iyo niman macallinkii oo qalbi wanaagsan way jeclaan jireen macallinka waa la oran jiray waa kale yiraahdo saddex kaafo macallinku maraayo macallinku iyo macallinkii way macallinkii hadii la yiraahdo waa macallin tagay macallinku hadii la yiraahdo kaafka la godana waxba jira gooyin macallinku baa la leeyahay laguma jecsana laakiin macallinka inta la leeyahay kor dhigayo waa la jecel yahay macallinka noocaas ah ardada markuu si fiican u tarbiyeeyo wax baro waxa uu lahaan jiray xoolana in la siiyo lana xurmeeyo aad baa loo xurmeyn jiray dadkuna diinka way jeclaayeen oo ku dhameeyo ardada quraanka xiftido oo ay noqoto in waqtigii dhamaado ayaa la oran jiray kama marmina macallinka inuu naga tagay aynu gabadh guurino guurka noocaas ah ayaa la oran jiray guur sharafeedka ah oo dhamaarta aan siino guur sharafeedka waxa la oran jiray muunayn waa lagu muuneeyay waa nin wanaagsan xaafid quraana ardadii kiciyay marka sumarba inoo la jooga inoo la dago aynaan maartay u kala fogaanin u kala go'in xidid iyo saan noqon xigaalo gabadha aynu siinaa la oran jiray gabadha marka intii la baaro in hebel yaa gabadha ugu qiimo badan la siin jiray guurkaas marka waxa la oran jiray guurka muunaynta ama guur sharafeedka